Culimada sayniska ayaa ku guuleystay in ay horumariyaan isla markaana ay tijaabiyaan raximkii ugu horeeyay gacan ku samays ah laguna talagalay korinta ilmaha dhiciska ah muddo 4 isbuuc ku dhawaad ah arrinkan oo yareynaya khatarta dhalmada xilligeeda ka soo hormartay aadanaha koox ka tirsan culimada caafimaadka oo hogaaminayo Alan Phillips oo ah dhakhtar qalliin kana howlgala isbitaalka iyo dhallaanka Philadelphia ayaa sameeyay cilmi baaristan oo lagu faafiyay journalka Nature. Dr. Phillips ayaa yiri markaan awood u yeelanay inaan muddo isbuucyo ah ka qayb qaadano korinta xubnaha waxaa noo suurtooday in aan wax ka qabano carruurta dhiciska ah raximkan cusub oo loo adeegsanayo qalabka Biovac ee la hormariyay si loo hubiyo inuu dhiigga sida caadiga ahayd ugu wareego xididada dhiigga oo ku jirta iyo rogrigidooda iyadoo loo diyaariyay the closed ka oo ah deegaan xiran oo mugdi ah dareerana ah taas oo kobcinaysa haragga sare kana ilaalinaysa jeermiska iyo dhibaatooyinka kale iyadoo inta ay u dheer tahay in xundurta oo ku jirta lagu diyaariyay qalab sidii xididada dhiigga oo kale u shaqeynaya isla markaana la falgalaya in badan oo kamid ah shaqooyinka la xiriira xundurta culimadan ayaa isku dayay inay diyaariyaan deegaan ay ka buuxaan dareero u dhigma raximka hooyada kale lagana helayo oksijiinka iyo maadooyinka cunto iyo qashin saarkii si uu u baahnaa ku jirta raximka gacan ku samayska ah ayaan marnaba bedel u noqon karin kan hooyada laakiin ujeedadiisu waa in laga badbaadiyo ilmaha yar ee ku dhashay isbuuca 23aad iyo 28aad ee dhiciska ah 3 sano ee soo aadan ayaa waxaa bilaabanaysa in qalabkan cusub lagu tijaabiyo aadanaha iyadoo hadda lagu tijaabiyay xayawaano kala duwan laguna guuleystay